السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا warbixin ku saabsan dalka Qatar. Dalka Qatar waxa uu ku yaala galbeedka Aasiya waxaana xuduud la leeyahay Sacuudiga iyo Bahrain. Waxaana ku hareeraysan gacanka Bershiya iyo gacanka Qatar. Wadanku waxa uu qaybsamaa 7 gobol, caasimadiisuna waa Doha. Waana wadanka ugu qanisan dunida. tirada dadka wadanka Qatar waxa lagu qiyaasaa 1,800,000 oo qof. shirkadda isgaarsiinta ee Qatar Telecom waxa ay ka shaqeysaa 17 dal waxaana leedahay 107 milyan oo macaamiisha. dhammaan muwaadiniinta Qatar waxa caafimaadka ka dhiiba dawladda marka lagu daweynayo dalalka dibadda ah. waa wadanka kaliya ee dunida korontada iyo biyuhu lacag la'aan yihiin. waa wadanka kaliya ee aan cashuur la qaadin. Hamad Airport waxa loo aqoonsan yahay airportka ugu fiican dunida. waa wadanka koobaad ee dunida ugu fiican dhanka qaybinta ama qaybsiga fiber optica. waa wadanka koobaad ee dunida ugu kaabayaasha qurxoon. waa wadanka koobaad ee dunida ugu horeeya dhanka kaydinta lacagta. waa wadanka ugu nabadgelyada badan xagga ka hortagga dhibaatooyinka. waa wadanka koobaad ee wadamada Carabta ugu dhaqsiyaha badan dhanka internetka. dalka Qatar waa wadanka ugu dakhliga badan adduunyada. marka loo eego shakhsi walba lacagta ku soo aadaysa oo ah $146,000 sanadkii. waa wadanka labaad ee ugu taajiriinta badan dunida waxaana gaarayaan 30,000 oo milyaneer. waa wadanka koobaad ee Carabta iyo wadanka afraad ee dunida xagga tayada waxbarashada. waa wadanka koobaad ee Carabta iyo wadanka lixaad ee dunida xagga tayada caafimaadka. shirkadda duulimaadada ee Qatar Airways waa shirkadda ugu kabca badan dhanka duulimaadada. waxa ayna leedahay 170 diyaaradood. waa wadanka koobaad ee Carabta iyo wadanka 20aad ee dunida xagga la diriirka musuqmaasuqa. waa wadanka labaad ee dunida ugu amniga badan leh xagga nabadgelyada. waa wadanka koobaad ee Carabta iyo wadanka 12aad ee dunida xagga tartanka tabinta wararka adduunka. waxaana leeyahay shabakadda Al Jazeera oo 7 sano ku guuleysanaysay tabinta wararka degdega ah. waa wadanka koobaad ee dunida xagga shaqo la'aanta. shaqo la'aan ma jirto.